حاجة صندقة حاجة صندقة حاجة صندقة حاجة صندقة حاجة صندقة حاجة صندقة يا الله يا كيال عرفنا والله وفا يا وليبا عفوا يا لك واريا لا اصبعنا والله يسوسي والله صندوقه ورا عبا 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 وريه عبا وكا صندوقه صغير حصان عيدا بايد musiibo weyn oo lama filaan ah ayaa ka qaraxday gobolka Awdal magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa ka dhacay arrimo ay fajac iyo argagax ku noqotay dadka rayidka ah ee ku dhaqan halkaasi waxaana arrinkaasi salka uu ku hayaa ciidamada SNM ama ciidamada Somaliland ayaa dilay nin dhalinyaro ah una dhaqdhaqaaqa xuquuqaha iyo waliba siyaasadda dhanka gobolka Awdal oo ay ugu magac dareen hadraawiga gobolka Awdal waxaayna dadka rayidka ah ku banaan baxayaan sida maqlaysaan ba dooni mayno Muuse Biixi dooni mayno Somaliland bilihii inoo dambeeyayna gobolka Awdal waxaa ka jirtay arrimo cabsi markaasi laga qabo in dagaal uu ka qarxo ama dagaalka ay ku soo biiraan kadib markii maamulka Somaliland ama Muuse Biixi uu kula kacay falal guraacan dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi markii ay si weyn uga hor yimaadeen dagaalka uu kula jiro gobolada SSC waxaana daawadayaal si toos ah diiradda u saari doonaa xaaladda magaalada Boorame sida haatan ay tahay inaga oo helayna warar xaqiiqada ku saleysan ayaa waxa ay noo sheegayaan in gabi ahaanba ciidamada Somaliland ay isaga baxayaan fariisimihii ay ku lahaayeen magaalada Boorame bilihii inoo dambeeyay dagaalka uu ka socday Gooja Cadde iyo eriyada gobolada aan idhaahnay SSC waxa jirtay gobolka Awdal in si weyn iyagu ay uga hor yimaadeen ama beesha Samaroon ee ku dhaqan gobolka Awdal ay sheegtay in dagaalka isaga ah wax walba oo dhaco qayb aysan ka noqon doonin hase yeeshee taa cagsigeeda ay Somaliland ay dagaal kaga qaadi doonaan meesha ay joogaan waxgaradka beelaha halkaasi ku dhaqan iyo waliba ciidamo beeleed oo ka dhisnaa meeshaasi ayaa si weyn isku kaashanaya waxaana dagaal toos ah lagu qaaday meel kasta oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada Somaliland waxa bilowmay maanta ciidamada Somaliland in ay ka baxaan dhowr fariisimood ay ku lahaayeen magaalada Boorama dadka rayidka ah ayaana ku dhawaaqaya kaga faa'iideysta hadda intay xabadda qoriga afkiisa ku jirto ama arrinkan ay cusub tahay iska dulqaada ciidamada Somaliland ee ku sugan guud ahaanba gobolka Awdal waxayna ku dhawaaqayeen dadka intooda badan halkani waxay noqon doontaa Gooja Cadde labaad taasi oo ka dhigan in Somaliland ay wajahayso xaalad cakiran gibi ahaana ciidamada Somaliland ayaa isaga soo hayaamaya fariisimihii ugu weynaa ee ku lahaayeen magaalada Boorame iyo nawaaxigeeda waxayna u eg tahay xaaladdu in ay tahay mid aad u cakiran waxay sidoo kale dadka shacabka ah ay codsanayaan ama ay ku celcelinayaan 24 saac gudahood hadii lagu soo xiri waayo ninka dilay ama askarigii ninka toogtay hadii lagu soo xiri waayo tiirka waxa u dhiman doono dad badan iyaga oo waliba si gaar ah farta ugu fiiqay dad ay u arkaan inuu muhiim u yahay maamulka haatan jira ee Somaliland oo horkacaya Muuse Biixi Cabdi waxayna sheegeen in Muuse Biixi wiilkiisa ama ehelkiisa qof ah uu u dhiman doono hadii ninkaasi gacan ku dhiiglaha 24 saac gudahooda tiirka loogu soo xiri waayo ma jirtase wax ay ka bixisay xukuumadda Muuse Biixi oo jawaab ah arrinkaasi haba yaraatee waxay ka bixisay ma jiro dadka shacabka ana waxay si toos ah ay u bilaabeen mudaharaadyo iyo waliba iyaga oo cagta marinaya meel kasta ay ku arkaan calaamadda Somaliland calaamada ayay gubayeen waxayna ku dhawaaqayeen dooni mayno Somaliland dooni mayno Muuse Biixi dooni mayno dilka xaq darrada ah ay ku dhawaaqayeen gobolka Awdal isagu marka horeba xaaladiisa waa uu cadaystay oo kaga aadan dagaalkan Sool iyo Sanaag yacayn arrimahana arrinkaasi ay salka ku haysaa ninkan haatan ay ciidamada Somaliland dileen waxa uu ahaa nin aad ugu ololeeya gobolka Awdal iyo waliba cid kasta oo laga xaq daran yahay gudaha Somaliland ku dhaqan
gebi ahaanna waxaa isku soo baxay waxgaradka iyo dadka maaragtay arrimaha gobolka Awdal u dhaqdhaqaaqa arrinka isagana waxa ay ku tilmaameen in ay tahay mid loo baahan yahay in reer Awdal ay iska dulqaadaan ciidamada Somaliland ama ay joogaan waqtigii ay ka xoroobi lahaayeen Somaliland waxaadna moodaa in Somaliland ay noqotay meel uu shakhsi walba ama gobol walba oo gudaha Somaliland ku jira uu doonayo sidii uu uga xoroobi lahaa ama uga madax banaanaan lahaa maamulka uu horkacayo Muuse Biixi Cabdi dadka siyaasadda geeska faallaya ayaa waxay sheegeen in Muuse Biixi siyaasad xumadiisa iyo habdhaqankiisa maanta ay u horseeday Somaliland taariikh mugdi ah in ay wajahdo kadib 40 sano ictiraaf la doonayay in uu hirgalo waxayna u muuqataa kala guurkan ama kala hayaankan Somaliland in ay ka midaysan yihiin dadka rayidka ah ee ku dhaqan iyo waxgaradka ku dhaqan guud ahaanba gobolada kala duwan ee Somaliland inay ka midaysan yihiin fikradda ah in Muuse Biixi xilka uu ka dago dhammaan mucaaradka iyo muxaafidkaba dadka waxgaradka ah ayaa ka midaysan in xilka ay ka qaadaan ama uu iska dhigo Muuse Biixi maadaama uu u horkacay burbur iyo dhibaato iyo hagardaamo ku noqotay indhaha caalamka mid ay aad ula yaabaan dhanka kale maamulka Khartoum State ayaa iyaguna isbuucan gudihiisa waxay qorsheynayaan inay ku dhawaaqaan madaxweynihii hogaamin lahaa dhowrka sano ee soo socota Khartoum State ama gobolada SSC waxaana xusid mudan in horaan loo soo xulay guddi isku tafaxtiran kaasi oo lagu kalsoon yahay laga rajeynayana bishan intaysan dhammaan ama kala barahaba aysan gaarin in ay soo dhisaan xubnaha kala duwan ee ka kooban tahay Khartoum State si ay u hirgasho dowladnimada iyo waliba jiritaanka Khartoum State oo iyadu iskeeda ugu dhawaaqday in ay ka madax bannaan tahay ama ay ka go'an tahayba Somaliland waxaana la dhisayaa ciidamo aad u tiro badan iyadoo loo yahay in toddobaadkii la soo dhaafay ilaa 2,000 oo ciidan ama 2,000 oo askari tababar rasmi ah loogu soo xiray duleedka magaalada Laascaanood kuwaasi oo la rajeynayo in ay wax ka bedelaan gebi ahaanba dhibaatooyinkii dadka reer Sool iyo Sanaag ay kula kacday Somaliland dhowrka sano ee ay wax la qaybsanayeen ama ayba siyaasadoodu isku dhan u changeentay What